بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابانيا آيات اللبقل أفرتن إيا تضوء أو سورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغسوا ورمي عشر كان نهر آياته أقدم بيجي لمن كرهير بنو إسرائيل oo waxa weeye nabigoodi u dhaheen nin boqora noo samay oo aanu micigiisa dagaalano waxa uu ku yiri ma laga yaabaa haddii laydinku farad yeelo dagaal inaydan dagaalamina markaasay waxay yidhaahdeen maxaa dhacay bay yidhaahdeen oo aanan ugu dagaalamaynin fii sabiilillaahi ayadoo nala ka bixiyey daarahayni owlaadaynina la qafaashay maba dhici kartay yidhaahdeen inaanan dagaalamin ilaahay wuxuu yidhi markii dagaalkii lagu farad yeelay way jeesteen buu dhah ilaahay ilaa wax yaroo ayaga kamida mooyaane kuwaasoo noo imaanaya markaasuu dhaha alla wallaahu alla caliimun alayku cilmi la weeye bidaalimiina daalimiinta waana jaasinayaa marka nimankii waxay soo yidhaahdeen boqor noo samay ayay dhaheen halkan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa boqorkii markii loo soo bixiyey ayuu ugaga warramayaa reer banu israa'iil marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayuu su-aashay baa la yidhi nabigii in reer banu israa'iil boqor loo soo diro oo niman boqorle ay noqdaan oy isku raacaan markaasaa ilaahay wuxuu ku ajiibaa la yidhi ilaa irsaali daaluud weeye daaluud ninka la yidhaha in loo soo diro oo reer banu israa'iil boqor u noqdo ayaa nabigi lagu ajiibay baa la yidhi taasaa hadda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramayaa wa qaala wuxuu u dhahay yow dha ilaahay lahum reer banu israa'iil nebiyuhum nebigoodii yow dha ilaahay ina allaaha alla qad xaqeeqe ahe bacasa lakum waa idinsoo bixiyey daaluuta daaluud ayuu idinsoo bixiyey melikan xaal ou yaa kii boqora qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay annee kayfa sidee buu yakuunu oo ugu ahaanayaa lahu daaluud ninka la yidhaahdaa almulku boqortooyadii calaynaa korkayna wal xaal naxnu annagu a xaqu anuga xaqnimo badannahay bilmulki boqortooyada minhu isaga xaggiisa walam yu'ta haddana aan la siinin sacatan waasacnimo minal maali maalka xaggiisa aan laga siinin see waxaa weeye boqor noogu noqonayaa qaala waxau u dhahay yow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaalaa nebigoodii waxau u dhahay yow dha ilaahi subxaanahu wa tacaalaa ina allaaha alla ayuu dhahay isdafaahu waa doortay oo waxaa weeye ninka la yidhaahdo daaluud ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa boqornimo isaga ayuu u doortay ina allaaha alle ayaa isdafaahu doortay ayuu dhahay calaykum korkiina ayuu ka doortay oo inuu boqor idiin ahaado ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa daaluud doortay wa zaadahu alla wuxuuna u siyaadiyey basdatan waasacnimo ayuu u siyaadiyey filcilmi cilmiga iyo waljismi jismiga wallaahu allana yu'tii waa siinayaa mulkahu boqortooyadiisa man yashaau ruuxu ou doonaayo ayuu siinayaa wallaahu allana waasicun allihii oo waasacyaa weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmile qofkii ahlu ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noogaga warramayaa reer banu israa'iil sidii loo ajiibay oo markaasi waxa weeye nabigii markuu alla baryey ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u ajiibay in markaasi waxa weeye daaluud boqor loogaga dhigo hadalladii markaasi oo u soo jeediyey iyo siday ayaguna mucaanidiin u ahaayeen oo hor yimaadeen alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u dhahay nebigoodii ina allaaha alla qad xaqeeqee bacasa lakum waa idinsoo bixiyey daaluuta daaluud ayuu idinsoo bixiyey ninka la yidhaahdo melikan xaalow yaa kii boqor ah oo boqornimo ayaa daaluud laydinkugu soo diray markii waxaa weeye daaluuda boqor idin ah la yidhi ayaguna waxaa weeye meeshaas aysan ka malaysanaynin ninkaa in boqor loogaga dhigaayo qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahi ayagoo inkiraaya annee kayfa sidee buu yakuunu lahu lmulku annee kayfa sidee buu yakuunu lahu ugu ahaanayaa almulku boqortooyadii calaynaa korkayna see ninkaas daaluud la yidhaaho annaga boqor noogu noqonayaa wal xaal naxnu annagu a xaqu aan uga xaqnimo badannahay bilmulki boqortooyada minhu isaga xaggiisa waxay ka wadaan baa la yidhi liannahu laysa min sibdi lmamlakati wala nubuwati waxay ka wadaanaa la yidhi ninkaanu waxaa weeye kama soo jeedo dad reer boqora kama soo jeedo dad waxaa weeye nabinimona kama soo jeediyo dad waxaa weeye nabi laga soo saari jirayne
kama soo jeediyo. marka hadda waxa weeye sidaas ay maaragtay ay ku diideen baa layidhi. markay ka wadaan baa laleeyahay laysa min sibdil mamlakati ay ka wadaan tol oo waxa weeye ambase qabiil oo waxa weeye boqor laga soo saara kama soo jeeda markay leeyihiin waxay ka wadaan baa layidhi lam yakun min duriyati yahuuda ibnu yacquub waxa weeye duriyadii yahuuda ibnu yacquub ma ahana yidhahdeen kama mid maahan. maxaa yeelay reer binu israa'iil 12 qabiilay ahaayeen qolo walba waxbay khawaasle aheeday ay ku gooni aheeday. marka waxaa la yidhi dadka boqortooyada laga soo saaro waxay ahaa jireen baa layidhi duriyada maaragtay yahuuda ibnu yacquub. yacquub owlaadiisii nin kamida owlaadiisa ayaa laga soo saari jiray baa layidhi. marka waxay yidhaahdeen bahdaas ka mid maahan oo laga soo saaro boqortooyada. nabinimada markaasi dadka laga soo bixiyana ka mid maahan ayay leeyihiin. maxaa yeele waxaa la sheegay nabinimadana waxaa laga soo bixi jiray duriyadii laawey ibnu yacquub nin la dhihi jiray oo owlaadii yacquub ka mid ahay. marka ninkan wuxuu ka mid ahay baa layidhi duriyadii oo duriyadii banyaamiin oo ka mid ahay oo owlaadda yacquub ugu yaraay. haddana waxaa weeye ay isku bah ahaayeen nabiyullaahi yuusuf. insha allahu tacaala suuratu yuusuf aan ugu tegi doonaa. marka waxaa weeye banyaamiin duriyadiisu waxay ahayd baa layidhi nabinimana dhexdooda kama sugnaanin oo nabi lagama soo bixi jirin. boqortooyana waxaa weeye weligood laguma aragaa layidhi. marka dadkaas waxaa la sheegay oo ahlu siiradu ay leeyihiin xirfooyin oo danii'o ah xirfooyin liita ayay ku negaadeen oo iska qabsan jireen baa layidhi. waxaana ugu wacnay baa layidhi macaasida ay samaynayaan. maxaa yeele dadku waxa weeye haddii sharaftooda aysan ilaalin oy macsidooda badato iyo alla ka dheeridoodu waxyaabaha markaasi liita oo waxa weeye hooso ayaa markaasaa lagu sallidayaa. isla markaasina waxaa weeye camal looga dhigayaa. kolkaas waxay noqonayaan dad markaasi la yaraysa saasay ku noqonayaan. waxa keenayana waa macsida ayaa maaragtay sabab u ahaa layidhi. laakiin hadda arrintaanu waa cagsoonto markaan daaluud laga dhigaayo boqorka reer banu israa'iil ayaga dhan ayaa macsi maaragtay wada galay oo waxa loo gumaysanaya ayaaba dunuub ay galeen iyo diintooday ka tageen. ambiyadoodii waxna laayeen waxna ay beeniyeen. sidaas markay sameeyeen ayaa ayagii waxay wada noqdeen baa layidhi dad wada ahlulmacaasiya. kolkaasaa waxaa weeye waxay isdheer yihiinaa la waayaba. marka hadda waxaa weeye markay inkirayaan saasay ku inkirayaanoo wax markaasi aan caadi ahayn ayay arrintaanu heeday. haddana waxay yidhaahdeen walam yu'ta lama siinin sacatan waasacnimo minal maali maalka xaggiisa. waxa weeye maalkana waasacnimo lama siinoo nin xoolo qaba maahan weeye. oo waxa weeye markaasi boqortooyada inuu maaragtay yaa taago maal oo u kaalmaysto ma haystay yidhaahdeen. marka hadda waxaa weeye boqortooyada laftirkoodu maal ayay u baahan tahay. wixii maal ahaayoo boqortooye lagu dhisaayne ma haayo ayay yidhaahdeen. waxaa culummada qaarkeed sheegeen ninkaas wuxuu ahay baa layidhi nin maaragtay wuxuu ahay dibaaq ayuu ahay baa layidhi. waxuu samay jiraan harkaha dadka megdeeya ayuu ahay baa layidhi. culummada qaarna waxay yidhaahdeen maya waxuu ahay nin raaciya ayuu ahayo wuxuu ahay qowsaar ayuu ahay. qaar waxay yidhaahdeen waxuu ka shaqaysan jiray xirfadan dameer dhaaninta ayuu ka shaqaysan jiray. warar sidaas ayaa la sheegaa. qaala markaas nabigu waxa u dhahay in allaha alle isdafaahu waa doortay ayuu dhahay. wax kastaba sheege in allaha alle ayaa isdafaahu doortay oo boqortooyada ilaahay ayaa u doortay ninkan la yidhaha daaluud. calaykum korkiina ayaa ilaahay ka doortay. wazaadahu alla waa u ziyaadiyey basdatan waasacnimo ayuu u ziyaadiyey filcilmi xagga cilmiga iyo waljismi xagga jirka. in allaha alle ayaa isdafaahu doortay calaykum korkiina ka doortou dhahay. wazaadahu allana wuxuu u ziyaadiyey basdatan waasacnimo ayuu u ziyaadiyey filcilmi cilmiga iyo waljismi jismiga. oo intaasna waxa weeye wax dheeraada ayaa ilaahay siiyey. waxaa la sheegay daaluud waxau ahay baa layidhi reer banu israa'iil ninka ugu cilmiga badanna maalintaasaa layidhi. ninka ugu cilmiga badanna ayuu ahay. towreed ayuu xifdisnay baa layidhi ou xaafid ku ahay baa layidhi. wuxuu ahay baa layidhi haddane abuurka ninka ugu taamsan ayuu ahay baa layidhi. oo dadka zaminkiisa jooga wuxuu ka dheeray baa layidhi labadiisa garab iyo maaragtay madaxiisa intaas ayuu ka dheeray. oo waxa weeye ninka kastoo zaminkaas jooga ninka ugu dheer waxaa weeye garbihiisa waxaa weeye ma dhaafaynaa layidhi. marka hadda sidaas ayaa maaragtay haa la sheegaa. culummada qaar waxay yidhaahdeen markii oo arrimaha ay yidhaahdeen shamcuunna waxaa weeye shamwiil nabiga la yidhaahna ilaahay uu baryaa layidhi.
in markaasi boqor la soo bixiyo waxaa la siiyaa la yidhi shamwiil gees ayaa la siiyaa la yidhi oo markaasi dhiib oo ku jiro barafuun oo ku jiro diibulqudus lagu magacaabo waxaa la siiyaa layidhi ulna waa la siiyaa la yidhi markaasaa waxaa loo waxyoodaa la yidhi nin hadduu kuu soo galo magaciisa daaluud la yidhaahdo waxaad fiirisaa geeskaan fiiri baa la yidhi haddii waxa weeye subagga ku jira amase dhiibka ku jiraahu markii waxaa weeye ou kaco ou faafo madaxiisa marmari ayaa la yidhi oo madaxiisa waxaa weeye ku subagaa la yidhi haddana waxaa weeye ushaanna waxaa la yidhi maaragtay geli ayaa la yidhi haddii waxaa weeye oo ninkan na waxaa la yidhi usha inaad dhiibka gelisid kabacdi ninkaas ushaan ku jumay ayaa la yidhi haddii waxaa weeye dherarkeedu isaga uu la ekaado waxa weeye boqorka la sheegaya isaga weeye markuu u soo gala ayuu sidii sameeyaa la yidhi ushii waxaa weeye dherarkeedii asaga ayuu la ekaaday subagii ayuu madaxiisa mariyaa la yidhi markaasuu waxau dhahay baa la yidhi ilaahay boqor ayuu kaaga yeelay reer banu israa'iil kolkaasuu daaluud wuxuu dhahay baa la say arrintaas ku dhacaysaa ninka ugu liita ayaan ahay oy xaqiraan dadka la xaqira ayaanba ahaye markaasaa ilaahay waxau u dhahayaa la yidhi oo nabigii lisaankiisii loogu yidhi nabigaa waxau dhahay allahu yu'tii mulka waman yashaau ilaahay boqortooyihiisu qofkau doono samaynay qofkau doono ayuu siinayaa marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala nabigu waxa u dhahay alla wuxuu u siyaadiyey wusci oo xagga cilmiga iyo xagga jismiga maxaa yeele cilmigu wax badan ayuu samaynayaa maxaa yeele waxau dhahay imaamuna ashaafici ra'aytu alcilma saaxibuhu kariimun walow waladatu aabaa'un li'aamun ou dhahay waxaan arkay buu dhahay cilmiga saaxiibkiisu inuu sharaf leeyahay ninka saaxibulcilmiga aabbaa oo doqonabaha ka soo jeeda ee mar hadduu ahlulcilmi noqdo waxa weeye nin kariim oo sharafla ayuu noqonayaa markaasuu dhahay wallaahu alla yu'tii waa siinayaa mulkahu mulkigiisa man yashaa'u ruuxa ou doono ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wallaahu allana waasicun allihuu waasacya weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmiga qofkii ahal u ah ilaahay waa ogyahay wa qaala waxa u dhawdha haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala lahum reer banu israa'iil nebiyuhum nebigoodii waxay haddana weydiiyeen waxaanu doonaynaa ninkan inuu boqor annaga noo yahay walax calaamowa ayaan doonaynaa aayad ayaanu doonaynaa hay yidhaahdeen markaasuu waxa weeye aayaddiisa ayuu u sheegayaa ay ku garanayaan wa qaala waxa u dhahay lahum ayagow dha ilaahay nebiyuhum nebigoodii lamaa dalabuu minhu aayatan calaa mulkii weeye inna aayata mulkihi ayuu dhahay boqortooyadiisa aayaddeedau dhahay inna aayata mulkihi mulkigiisa aayaddeeda waxaa weeye calaamada waxaa weeye calaamowa inuu ninkaanu boqor yahay an ya'tiyakum inuu idin yimaadaa weeye attaabuutu sanduuqi an ya'tiyakum inuu idin yimaadaa weeye attaabuutu sanduuqa uu idin yimaadaa fiihi waxaana ku sugan taabuutkaas sakiinatun xasilooni ayaa ku sugan oo qalbigiina dumaanina ugu sugan tahay sakiinadaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay iyo wa baqiyatun baqiyo oo mimaa kii ka mida taraka ay ka tageen aalu muusaa muuse aalkiisi iyo wa aalu haaruun aalkiisi taxmiluhu xaal ay xambaarayso sanduuqaas almalaa'ikatu malaa'igtu ay xambaarayso inna fii daalika kaa la soo sheegane la-aayatan aayad weeye oo lakum idinka idiin sugnaatay oo idin tusinaysa inuu daaluud boqor yahay in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay reer banu israa'iilow mu'miniina kuwa rum casharkeenna aayaddaas ayuu noo joogayaa halkaas ayuuna ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam